السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. walaalahayga Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin, waxaan idinkugu salaamay salaantii islaamka. Markii dhibaatooyinka ay bataan, muranka uu bato, dagaalka iyo doodii diineed ay badato, waxaa haboon qofka inuu cararo khayru khalqillah nabigiisa Maxamed calayhi salaatu wassalaam oo arinta uu bandhigo. marka maadaama ay arinta marxaladaas ay mareysay, waxaan u cararay sayidkeyga xabiibkeyga nabigeena Maxamed calayhi salaatu wassalaam anigoo su'aal weydiinaya kana xishoonaya. yaa rasuul allah, su'aal ayaan wataa oo meel walba laga weydiiyey oo aan jeclays inaan ku bandhigo. xishoodkan uu ii reebayaa, laakiin waajibkeyga diinigana waxay amrayaan inaan ku weydiiyo. yaa rasuul allah, waxaan ognahay saxaabigii jaliilka ahaa Xasaan ibnu Thaabit radiyallahu canhu markuu ku ammaanay ee gabyagaha inuu ku yiri khuliqta mubarra'an min kulli caybin, waxaa lagu abuuray adigoon ceebba lahayn, kaannaka qad khuliqta kamaa tashaa'u, waxaad u malaysaa in lagu abuuray sa adiga jecleed. fa ajmala minka lam tara qattu cayni, qofkaa qurux badan weligay ma arag. wa afdala minka lam talid innisaa'u, ninkaa fadli badanna dumarka ma aysan dhalin. yaa rasuul allah, waxaan ognahay saxaabigii Jaabir ibnu Samura radiyallahu canhu inuu yiri markaan arkay dayaxo kaamil ah wejiga nabigaan isku eegay, wejiga nabiga ayaa ka iftiin badnaa, ka qurux badnaa. yaa rasuul allah, waxaan ognahay Giola Germanos oo ahaa filosoofkii u dhashay dhulka Hungariya, aqoonyahanka mufakirka ahaa, wuxuu ku muslimay kaliya inuu kugu riyooday, riyo kugu arkay. yaa rasuul allah, waxaan ognahay sheekheena jaliilka ahaa Sheekh Uways al-Qadiri qaddasa allahu sirah wa nadara dariixa, markuu ku ammaanayay hadaladiis inay ka mid ahaayeen miskun wa kaafuurun wa cambaru faa'ixa rawda alxabiibi alhaashimiyi muxammadi kashubaakatan fiiha alxabiibu mukallala biddurri walyaaquuti qabra muxammadi tuuba liman xaja wazaara alqubbata alkhadraa'a fiiha axmeda wa muxammadi. inuu kugu ammaanay inaad caraf miski iyo kaafuur iyo cambar kaa soo carfayeen rawdadaada. iyadoo ay sidaas tahay ayaa waxaa jira arin mar walba lay weydiiyey oo ku saabsan xadiiskaasna sheegayo in ay jiraan xayawaanaad yar ama xasharaad oo ku dhibay madaxaaga galay, oo timahaaga aad madaxaaga la aaday saxaabiyadii jaliisha ahayd Umu Xaraam binti Milxaan inay ka saarto. yaa rasuul allah, adigan hore waxaan ugu tiri idaa samictum alxadiisa cani, haddii aad maqashiin xadiis aniga igu saabsan, tacrifuhu quluubukum, quluubtiinana ay taqaano, wataliinu lahu ashcaarakum wa abshaarakum, timihiina iyo jirkiinana ay u jilcaan, watarawna annahu minkum qariib, aadna aragtiin inuu idin dhow yahay xadiiskaas, fa ana awlaakum bihi, aniga ayaa xaq idinkaga leh xadiiskaas. وإذا سمعتم الحديث عني، هداد مخشين حديث أني إيقو سابسن، تنكره قلوبكم، قلوبتين إنكرتي، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، تمهين إدغرتين أنا كعرريس لبسانيس، وترون أنه منكم بعيد، أدنو أركتين وإذن كفوق يهي، فأنا أبعدكم منه، أنا وحن آيكي كفوق حديث كاس. إيضو أي سداسته يا رسول الله، أي وحاجرت حديث ay Soomaalidana wada og yihiin oo meel badan laga sheegay in
guriga xaraam inaad aaday oo madaxaaga xayawaanaadkii dhibay ay ka saartay iyadii anagoo og naxariis inaad u ahayd makhluuqaadkoo dhan ilaa raxmatan lilcaalamiin yaa rasuul allah waxaan ognahay marad asxaabadaada la socotay ee geed aad agmarayseen asxaabta kamid inuu ku arkay shimbir 2 caruur ku dhashay caruurtooda ayuu ka qaatay shimbirtii meeloo carartay wayse aan adiga ka ahayn agtaada timid baalasha dhulka ku garaacday ilaa aad ka tiri war hooyadan labadeeda caruur yaa ka qaatay u celiye qofkii hooye iyo caruurteeda qofkii kala fogeeyo يوم القيامة إسجن إلهي وحكلا فوقينا إسجن عدو جعلا شنبر درادد يا رسول الله وحان أقنها دقوا صحابة هذا الله صعد قيل إنه كويمت هرتي مدحي صوصو دقي أو كوسو دوي إنه سنة إلين كيمادين دقاها قدالات كسل صلاح دي اتري هبل هاللي يقو يارو نينكي مركي لو ياريني كتري رتقان دقا اسكالي سو ماها مركو قرتي أد كتري نينكي رتقان وكاد دعوونا يا دادي سنة ويناتي وحسن حنبارك رنوات كو حمالتا راشين في عنا مسيسد رتقان إلهو كاق دعوونا يا قلنا حريستا وحي دولك كدول نول إلهي نو إذن نحريسان خف كان نحريسان الله ما نحريسان iyadoo isaas tahay waxaan soo gaaray xadiiskaas oo dood dhaliyay nabigan kaleey salaatu wasalaam markuu wuxuu igaaga jawaabay nabigan kaleey salaam markuu wuxuu ugu yiri inkiraad ama dood in lagu qaado qofkii xadiiska soo qaatay waa jahl cilmigana wuxuu soo yareeyaa xurriyadaada xor uma tihid qofka xadiiska markuu ku dhawaaqay inaad tiraahdo nabigu caayay ama aflagaadeeyay taas waa jahli khafka jaahilka ay oran kara laakiin khafka caalimka ah arintaas ma oran karo sababtoo ah xadiiska sheekhaas uu soo qaatay waxaa soo wariyay imaam Malik waxaa soo wariyay imaam al-Bukhari waxaa soo wariyay imaam Muslim imaam Abu Daawud imaam Tirmidhi imaam an-Nasa'i imaam Abdullah ibn al-Mubarak wa imaam ibn Sa'd wa imaam Ahmad ibn Hanbal wa Abu Awaana وابن حبان واللالكائي أبو نعيم بيهقي ابن عساكر رجع صنع ويسوريان حديثك أو سداسة مركا حديث سداسة كلا لو سوري قفكي ساق هاتي إن للدق علمه مبدأ ديننا معها علمنا معها أمان علمنا معها وحياوك الخفك على ولدق علمه لكن حديث أو كتبتها سكجرته إنه ساق هاتي صابا إن للدق علمه معها لكن علمك علم أي الله جوابا مركا النبي عليه السلام وحيوير حديثك صار لغا مخلين حرام بنت ملحان ها إيذا أيوير حرامي حديثك كسابس إنه قريقا إيمد آن ساحذي تمهيغان أدو حكا قرتي كدبنا أنا قصلا يسوطوسي كو إري وحان أركي dad ummadeeda kamid ah ee badda ku safri doono oo sida boqoro oo kala sariir u saaran aad igu tiri ilaahay iga baray aniga inaan kamid noqdo aan ku duceeyo inaad kamid noqotid kadibna hurdadii aan ku noqday aan si aan oo qoslayo soo toosay laba jeer markii arintaas dhacday tan labaadna aad igu tiri igu duceeyo inaan kamid noqdo waxaan ku iri waxaad kamid tahay kuwii hore xadiiskaas yaad u sheegtay Haram bint Milhan waxay tiri afar qofood ayaan xadiiska u sheegay حديثك وحاون الشيخ أنس بن مالك وان هورير أو أهي عمير ابن الأسود أبو ثابت يعلى ابن ثابت يعطاء ابن يسار انتي والله ياري مرك أنس بن مالك وحان كوني رمادامة أدقى آد هانجرتي خادم كي النبي توصنا للنولاد تري توصنا النبي أخدمي ولي سنة هذا الحن إمرنهن ولي سنة وحان سمي محاد أسميس إقوم أوران وحان كتغين محاد أسمي ويدي إقوم أوران ومر والبا أدكو أماني جرت أخلاق في عنه لو نها نبينا عليه الصلاة والسلام مرتدى هرت أن سور دوينا أن إيجا ويدينو حديثك سيدك وسو قاري عمير بن الأسود العنسي أي سور دوادي حديثك أنه حك سوري إساق إمام البخاري إمام الطبراني في كتاب كيس كبير أبو نعيم حلية الأولياء ابن عساكر إمام البيهقي إمام حاكم وحليه هي مركراوي أنه أتى عبادة ابن الصامت وهو نازل في ساحل حمص إنه أيمد
عبادة ابن الصامت صحابي أها قبي أم حرام أسقو جوجو حمص سوريا وهو في بناء له أسقو جوجو قرؤ دقنيه وحانا لجوكتي أم حرام إذا أيانو شاكت حديثك وحين يوتري أنها إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أسقو أرانا أنا مغشي جيشك وجهري أمدي إذا كمد كو غزو كآدي دون بدأ قد أوجبوا وحكوا أجبت إني جنة قلان قلت وحنكو إري يا رسول الله أنا فيهم أنيقوم كن حجرا جيش كاس قال أنت فيهم أذيقوا تكون حجرتا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كدب النبي هذا مركلو يري جيش وهو غزو آذي دونا دولك قيصر ولو عفن دونا وحنكو إري يا رسول الله أنيقا مكمد أهي مركز يري مايا هذا اللفظ النوع سنوحا سوري إمام البخاري مكجرتا مرك رواية أبو يعلى يعلى ابن عمير ابن الأسود ما يكون مجرته وحكو سابسا تمهيسي إنه دي بمدحيس أم حرام أي إنجر كسارت كما جرته وكما حسنتهي عمير ابن الأسود هذا نوحا سوري لنا أبو ثابت يعلى ابن ثابت وإساقنا كسوري أبو داود إمام البيهقي إمام ابن عبد البر كتاب التمهيد الإمام الحميدي يحيى ابن معين إمام ابن أبي عاصم الإمام أبي عاصم الدولابي إمام الطبراني في الكبير عن أبي ثابت يعلى ابن شداد عن أم حرام قالت أم حرام إنه كتري ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة البحر النبي إنه الشاقي بدأ غزو لقو آدي دونه markaasuu yiri kii badbaadana wuxuu leeyahay ajarkii shahiid kii badda ku maashooda ku geeriyoodana wuxuu leeyahay ajarkii labo shahiid فقلت يا رسول الله waxaan ku iri rasuulka ilaahay udcu Allah an yaj'alani minhum ilaahay iga bari inaan kamid noqdo kuwaas qaala allahumma ij'alha minhum wuxuu yiri ilaahu ka dhig xaraam kuwi khafti jeeshkaas raacday badii ayay kortay oo waxayna markii ku dageen meeshii kalena inay ma aragtay ku geeriyootay ama farasteeda ay ka dhacday ama riwaayad kala duwan isagana ma sheegin in xaraam u sheegtay inuu nabigeena madaxiisa u dhiibtay timaahiisa ay ma aragtay ka shaqeysay marka shahaadadii labaad oo ahaa Ya'la ibn Thabitna wuxuu cadeeyay inaysan ku jirin inay xaraam u sheegin arintaas kan afaraad وعطاء بن يسار عطاء بن يسار السجن وحكسو وري أبو داود إيا عبد الرزاق بن همام الصنعاني مصنف كيسة إسحاق بن راهويه إمام أحمد بن حنبل محمد بن عبد الله بن هطل الصنعاني والإمام البخاري تاريخ السوينات ابن عساكر إمام الطبراني إدارة قطني ابن عبد البر في التمهيد السجن وحسوري إسلا رواية دانو كلا إنا يبدأ الجيش كسفر دونان أو يعني كنت عيسى تري يا رسول الله إلهي إجبري إن كمد نأخذ النبي كان وجود عي يسجنا عطاء ابن يسار لجم صورين إن حرام أي كشخيسي مدح النبي كان عليه الصلاة والسلام عطاء سجنا استاس أيوم أركتي أنكم مع سلامين كذب وحن أني مت كي وجودن به إمام صحابي جليل كأها مالك بن أنس رضي الله عنه مالك بن أنس السجنا وحن ويدين سؤاشي يا كاوري حديثك أو أشهكتي حديثك عن قصة مالك بن أنس وحيري أنس بن مالك عفوا صحابي وحيري أفر خفاض يعني أشهكي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة محمد بن يحيى بن حبان أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري المختار بن فلفل أفر ثلاثة يعني أشهكي حديثك هذا هو مدمد أيام أوريسنا أنا إيجانا سيد اللوغس هو الشيء حديثكي إمام صحابي أنس بن مالك وقصه قد بي هذا نسوق هذا محمد بن يحيى بن حبان وحانا كسي وريه يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري والتابعي محمد بن يحيى بن حبان والتابعي لو تابعيين عن أنس بن مالك عن أم حرام وهي خالة أنس بن مالك أم حرام هبرير أنس بن مالك قالت وحيتري أتانا النبي صلى الله عليه وسلم النبي أي نويمت يوما مال فقال عندنا
xaggeena ayuu duhurkii ku seexday. qayluula waxaa lagu magacaabaa hurdada duhurkii, ama halkan lagu magacaabo power nap. fastayqad wahuwa yadxak, wuu soo toosay asagoo qoslaya. faqultu maa yudxikuka yaa rasuul allah, waxaan ku yidhi rasuulka ilaahow maxaa kaa qosli siiyey? biabi anta wa ummi. qaala wuxuu yidhi uriitu waxaa lay tusay, yani rayada laygu tusay, qowman min ummati, qowm ummadeeda ka mid ah, yarkabuuna dahra albaxr, badda inay kori doonaan, kalmuluuki cala alasira, iyadoo u eg sida boqoro oo sariir saaran oo kale. faqultu waxaan ku yidhi udcu allaha an yajcalanii minhum, ilaahay iga bari inuu ilaahay iga dhigo inaan ka mid noqdo. faqaala wuxuu igu yidhi fainaki minhum, adiga iyaga ayaad ka mid tahay qoomkaas. qaalat kadibna waxay tiri uma naama, kadibna wuu seexday haddana mar labaad. fastayqad aydan wahuwa yadxak, wuxuu soo toosay haddana isagoo qoslaya. fasa'altuhu, hadalkii waa weydiiyey. faqaala mithla maqaalatii, wuxuu igu yidhi hadalkii hore uu yiri oo kale. faqultu waxaan ku yidhi udcu allaha an yajcalanii minhum, waxaan ku yidhi ilaahay iga bari inaan ka mid noqdo kuwaas. qaala anti min alawaliin, adiga waxaad ka mid tahay kuwii hore. kadibna wuxuu ku leeyahay raawiga, kadib fatazawajahaa cubaada ibnu saamiti bacdu, markaa kadib ayaa waxaa guursaday cubaada ibnu saamit. markaa kadib ayaa waxaa guursaday cibaada ibnu saamit. taasna meel ii dhiga inta, yani macnaha waxaa tahay qisada intaysan dhicin cibaada ibnu saamit ma uusan qabin. markuu sheekadan riyadan dhacday kadib ayuu cibaada ibnu saamit guursaday. fagaza albaxr, yani kadibna ghaswadii ayuu aaday. faxamalahaa macahu, yani wuu sii kaxaystay iyadii. xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo annasaa'i iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo abu cawaana, ibnu xibaan, ismaaciil alasbahani, ibnu casaakir, axmed ibnu xambal, imaam addaarami, imaam atabaraani, imaam albayhaqi iyo isxaaq ibnu rahawe. haddaba riwaayadan moxamed ibnu yaxya uu ka soo wariyey saxaabigii anas ibnu malik, miyay ku jirtaa nabigeena timihiis inay ka shaqaysay? waa maya, kuma jirto. haddana waxaan u yeernay kii labaad ee ahaa abu tuwaala cabdullahi ibn cabdiraxmaan alansaari, ee anas ibnu malik isagana kasoo wariyey. abu tuwaala isagana waxaa kasoo wariyey xadiiska imaam albukhaari, imaam muslim, imaam ibn abi shayba musanafkiisa, imaam axmed ibnu xambal, imaam abu yacla almusili iyo imaam abu cawaana iyo ibnu casaakir. can abi tuwaala cabdullahi bn cabdiraxmaan alansaari qaala wuxuu yihi samictu, aniga ayaa maqlay, anasan yaquul, anas isagoo oranayo, dakhala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam calaa ibnati milxaan, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu usoo galay ina milxaan oo ah habaryartii anas ibnu malik. fataka'a cindahaa, xaggeeda ayuu xusulka dhigtay, yani waxaa laga wadaa power nab ayuu qaatay, xoogaa ayuu ku hurday. uma daxik, kadibna wuu qoslay. faqaalad waxay ku tiri, umu xaraam ayaa ku oranaysa, lima tadxaku yaa rasuul allah, maxaad ku qoslaysaa rasuulka ilaah? faqaala wuxuu yihi naasun min ummatii, naas ummadeeda ka mid ah, yarkabuuna albaxr, waxay korayaan badda, alakhdar, badda cagaaran, yani badda alayaa loola jeeda, fii sabiilillah, ilaahay dartiisa. mathalu lmuluuki cala alasir, waxaad u malaysaa sida boqoro sariir saaran oo kale. faqaalad waxay ku tiri yaa rasuul allah, rasuulka ilah udcu allah an yajcalanii minhum, ilaahay iga bari inaan ka mid noqdo kuwaas. qaala wuxuu yihi allaahuma ajcalhaa minhum, ilaahu ka dhig umu xaraam tii ka mid noqotay kuwaas. uma caad, kadib hurdadii ay ku laabtay. fadaxik, kadibna haddana wuu qoslay. faqaalat lahu mithla aw mima dalik, yani kadibna waxay tiri sidii hadalkii oo kale. faqaala laha mithla dalik, isagana wuxuu ku yiri hadalkii riyada ayuu sheegay. faqaalat waxay tiri udcu allaha an yajcalanii minhum, ilaahay iga bari inaan ka mid noqdo kuwaas. qaala wuxuu yihi anta min alawaliin walasti min alaakhiriin, adiga waxaad ka mid tahay kuwii hore ee kuwa labaad kama mid tihid. qaala anas marka wuxuu yihi fatazawajat, kadib waxay guursatay cubaada ibnu saamit. cubaada ibnu saamit markaas kadib ayay guursatay. kii horena wuxuu yihi fatazawajaha cubaada ibnu saamit bacd, waxaa guursaday cubaada ibnu saamit kadib. kana soo kale kadib waxay guursatay cubaada ibnu saamit. yani riwaayadan labaadna tan hore ma sheegin timihiisa in laga shaqeeyey, mana sheegin inay ahayd xaaskii cubaada ibnu saamit. abu tuwaala isagana halkaa ayaan ku macsalaameyn. haddana waxaan u yeeraynaa kii saddexaad ee ahaa almukhtaar ibnu fulful, oo isagana waxaa kasoo wariyay imaam atabaraani fi lkabiir,
can Anas ibn Malik radi allahu canhu qaala nabiga Anas ibn Malik inuu yiri ittaka annabiy cinda binti Milxaan nabiga calayhi salaam wuxuu xusul ka dhigtay ina Milxaan gurigeeda fagafaa hurdo ayaa qaaday fastayqada wahuwa yadxak wuxuu soo toosay isagoo qoslaya faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah Milxaan ay oranaysaa rasuulka ilaah bima tadxak maxaad ku qoslaysaa faqaala qowmin ummatii yarkabuuna albaxra alakhdar qowm ummadeeda ka mid ayaa badda kori doona faqultu yaa rasuul allah adcu allaha an yajcalanii minhum ilaahay iiga bari inaan ka mid noqdo kuwaas faqaala anti minhum adiga waxuu ku yiri adiga waad ka mid tahay kadib wuxuu ku leeyahay Anas ibn Malik fanakaxat waxay haddana guursatay Cubaada ibn Saamid markaa kadib ayay wuxuu guursatay Cubaada ibn Saamid Abu Tuwaala isagana riwaayadiistaas ay ahayd kuma jirin tima laga shaqeynay marka waxaa noo haray kaliya riwaayadii Isxaaq ibn Abdullah ibn Abi Talha can Anas ibn Malik riwaayadaas aan soo sheegnay oo bilaaw aan ku soo qaadanay Anas ibn Malik inuu ka soo wariyay Abu Talha Isxaaq ibn Abdullah ibn Abi Talha can Anas ibn Malik inuu ma aragtay حرام النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل نبي أنه سجلي جري على حرام بنت ملحان حرام بنت ملحان قرية إيمان جري فتطعمه راشين أي سينجرتي وكانت حرام مركا وحي أهيد تحت عبادة ابن الصامت حاسكي عبادة ابن الصامت قد دخل عليها يوما مال أي أصوغل مركا محوشيغا يا رواية تنكوات in حرام ay ahayd xaaskii Cubaada ibn Saamid riwaayadii hore dhan aan soo qaadanay kuma jirto inuu qabay kadib inuu guursaday ay cadeynaysaa tan laakiin hore ay u qabay ay leedahay riwaayada faat'amatu thumma jalasat kadib waxay bilaawtay inay fariisto tafli ra'sahu timihiisi inay ka shaqeyso luqada carabiga marka tafli yani sharaxda luqada carabiga qaar waxay ku sharxaan fali الراس yani فلا waxaa loola jeedaa timihii injir laga soo saaray injirtaasna la dilay waa meesha marka cilada ay ka socoto marka afartii ama saddexdii ka soo wariyeen xaraam midna ma sheegin kan afraadna Anas ibn Malik ayuu ahaa Anas ibn Malik saxaabigii isagana afar qofood ayaa ka maqleen saddex ka maqleen midna ma sheegin timaha laga shaqeynay injir laga saaray halkii riwaayad kaliya ee ku jirto waa riwaayad Isxaaq ibn Abdullah ibn Abi Talha oo isagana oranaya can Anas ibn Malik oo Imam Malikna oranaya can Isxaaq ibn Abdullah ibn Abi Talha xadiiska marka noocaas oo kale markuu yahay xukunkiisa muxuu yahay xadiiska noocaas waxa lagu magacaabaa xadiis al-fard ama xadiis al-gharib xadiiska fardiga cidlada ah kaligiisa ah ama xadiiska la yaab kale ama martida ah hal qofood kaliya asaan u maqlay inta kale dhan ma aysan maqlin afar ilaa saddex todoba qofood oo kale ma aysan ku maqlin sida laakiin hal qofood kaliya ayaa maqlay xadiiska in nabiga calayhi salaam timihiisa laga shaqeynay qisadiina way isleedahay ka waxa lagu magacaabaa marka xadiis al-fard ama xadiis al-gharib fardigan laba nooc oo kala baxa fardun nisbi iyo fardun mutlaq فرد أو ضد لون نسبة ضد لغة المامة غير مدينة أيام مخلين تفرد به أهل المدينة ليرة أهل المدينة أيام لعد لودين حديث كاس لكن هل خف مركوية فرد مطلق وهل خف كلية أيام مخلي غريب نوعين حديث كنوع عصا مركا حديث كمركو فرد غريب كأويا حكم كيسمحويا هي إمام عبد الرحمن ابن مهدي يحيى ابن سعيد القطان أحمد بن حنبل يحيى ابن معين علي بن عبد الله المديني إمام البخاري شيخيس إمام البخاري نفسر كيسة إمام أبو زرع الرازي إمام أبو حاتم الرازي إمام النسائي إمام الدار قطني إمام أبو بكر البرديجي إمام أبو داود السجستاني كل جود حيقبان حديث كفرد غريب كأ معها إن لقاته أو حديثك لكهر إيمانا أما اسم كجرين زيادة معها إن لقاته إمام أبو داود السجستاني رسالة أو أدري أهل مكة رسالة أهل مكة علم الحديث حويري والحديث الغريب حديث كغريب لا يقبل لما أقبله وإن كان راويه مالك بن أنس حتى هدو صوري مالك بن أنس إمام مالك وحلوه أوغا
kalsooni oo si fiican u baari jiray xataa keligiis du soo wariyey oo qariibka ah lama aqbalayo xadiiskan horta qofka kaliya ee soo wariyey ee aimadaana kala dhan Bukhari iyo Muslim kulli ay ka qaateen waa Imam Malik muwatta'iisa Imam Malikna hal qof kaliya ayuu ka sii wariyey oo ahaa Isxaaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Isxaaq isagana hal qof kaliya ayuu ka soo wariyey Anas ibn Malik wa xadiis marka fard oo qariib ah marka Abu Daawud wuxuu leeyahay hatta duu qofka soo wariyey Imam Malik uu yahay lama qaato Imam Malik laftirkiisa muxuu leeyahay Imam Malik mar waxaa jirtay hal xadiis dad badan ay weydiiyaan sharxa markii dambe uu is weydiiyay hardisku yiri xadiiskan maxaa aniga la weydiinaya waxay ku yiraahdaan adiga mooyaane cid kale soo maqashay xadiiskan ma jirto markaas yiri saasba hadaan law kuntu a'lamu hadaan ogaan lahaa yiri ma xadastu bidad uma sheegi lahayn cilada jirto yiri aniga kaliya xadiis soo gaaray aimada kalena aysan soo gaarin xadiiskan cilada waxaan baarsan yahay reason ayaa jira hadaan ogaay sida inay tahay cidba uma soo sheegeen tanna waa tii kaligiis ayaa soo wariyay Imam Malik kadib aimadi kala ka qaateen muwatta'iisa marka Imam Malik laftirkiisa wuxuu leeyahay sharrul ilm ilmi waxa ugu shar badan al-gharib xadiiska gharibka ah wa khayrul ilm ilmigan waxa ugu khayr badan al-zahir alladhi qad rawahu an-nas kam muuqdo badan wariyeen marka todoba qofood riwaayadooda iyo hal qof riwaayadiisa ka badan واحد iyo wadar ka waada todoba qofood riwaayadooda dhan kuma jirto nabiga intimiis in laga shaqeeyay hal riwaayad kaliya marka wuxuu ku leeyahay taas kaasan sharrul ilm al-gharib Imam Abd al-Razzaq as-San'ani wuxuu leeyahay isagana kunna nara anna al-ghariba anna gharib al-hadith khayr waxaanu arki jirnay xadiiska gharibka inuu khayr ku jiro fa idha huwa shar waxaan ogaanay inuu shar tab isaga yahay xadiiska fardiga gharibka ah waa shar ayuu yiri Abd al-Razzaq as-San'ani Imam Ibn Rajab al-Hanbali wuxuu leeyahay أحمد بن حنبل waxaa laga soo waray at-tawaqquf fi ziyadat al-thiqat ma'a jalalatihim in laga hakado dadka lagu kalsoon yahay markay wax dheeraad xadiiska ku daraan inkastoo agteen ay qiimo kale yihiin laakiin waxa halkaas dheeraadka ay ku daraan waa in laga hakada oo la isticmaalin Imam al-Bukhari soo kale Ibn Rajab al-Hanbali wuxuu ku leeyahay qofkii si fiican u fiiriyo kitaabkii taariikhda Bukhari تاريخ ديسة تبين له قطعا وحاو عدانيس أو هبال أنه لم يكن يرى مؤسا أركجرين أن زيادة كل ثقة في الأسانيد مقبولة قفل بالوكل سونيه زيادة دي وكسو درع حديثة إن لا أقبله ما أركجرين إمام البخاري ما أقولين أنا قمت خلبك عن استعمال وخلبك إيقو أنه قلت لنا إمدي حديث كان حديث فرد أو غريبة ابن صلاح ولا يقان محدث كويناها النكت على ابن صلاح كتابك أها مجلد كلابات بيجك لح بقول سقاشين لو محكوليه إذا روى الحديث حديث كدو يسور يعني جماعة من الحفاظ جماعة حديث تحفظيه جماعة دي أنصار شاقنا وكله الأثبات أو واحد اسكسوغو العارفين بحديث ذلك الشيخ أو إن أجيين شيخ أصلا سوري حديث كيسة وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة إيه كدي من هذا خار كمده زيادات دي كدران خار كمده هل قف حتى موسى جروب كلا دي واحد إيراد كدران فإنها لو كانت محفوظة صوت حديث كسدي لصو حفظي لما غفل الجمهور دت كاسو دم إلوبي لهن كل ودا الساعة ودا مخلين ما ودا إلوبي لهن هل قف كلية محسوسنان لهن من رواية عنها فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديث يقتضي ريبة توجب التوقف عنها مركا أرنت ساس أي تهي أو ضد بدن يسوريين أو لو كلسون يهي خارنا واحد يراد أي كدرين خار ويري اسكوا داف هالقف واحد يراد كدرة مركا حكوليه هي يقتضي وحي أرنت للينيسا ريبة إن لغا شكيو التوقف واجب كديجيس توجب التوقف عنها واجب كديجيس حديث كاس إن على استعمال أو لخاذنين تاس مركا وعلد كواد وحديث كان أوليه هي أو إن حديثك وحديث فرد أو غريب أو أنت علماء إيراد حديثك فرد غريب كأ إن لخاتم معه صوتا خفك وحى أصور بكرة تا إيدو جرت هذا علدك سدحاد ولا علدي لبعضنا وحي أهيد حديثك اضطرابك كجر رواية هردن وحي شاكتي أم حرام بنت ملحان مركز مؤوسم قابين عبادة ابن الصامت كذب أبو قرصدي رواية كلنا وحي الله ذهي وقوي مركو نبي إيمانا يقولي هذا اتميسنا يكشقينيس
marka yani kuwaanaana ka badan. halkan riwaayad ayaana ku jirta keliya infiraadka ah in timihiisa laga shaqeeyey, kuwaan kale dhan kuma jiraan. marka xadiiska fardiga qariibka ah lama qaato. tan labaad, cilada labaad oo xadiiska leeyahay maxay tahay? anas ibn malik wuxuu yiri ma oran xadathana, waxaa ii sheegay ma oran, akhbarana ma uusan oranin, laakiin wuxuu yiri can isxaaq ibn cabdillah, dhanka isxaaq ibn cabdillah waxaa iga soo gaaray. can waa cancana, dhanka isa iga soo gaaray ee isagaa ii sheegay ma aha. isxaaq ibn cabdillah ibn abi talha isagana wuxuu yiri can anas ibn malik, dhanka anas ibn malikna waxaa iga soo gaaray ayuu isagana yiri. marka xadiiska cancana ku jirta. cancanadan xukunkiisa muxuu yahay? suu yiri imaam shucba ibn xajaaj oo macaalimka daqiiqa muxadiska ahaa, kullu xadiisin xadiis walbo laysa fiihi xadathana aysan ku jirin wuxuu noo sheegay, walaa akhbarana ama hebel ayaa noo waramay haddaysan ahayn, fahuwa khallun wa baql, waa khal iyo ansalaatadiis. khal iyo baqal weeyaan, bagal weeyaan, yani xadiis cuntami karo ma aha. marka haddiiba xadiiska mucancan uu yahay, oona fardi uu yahay, oona gariib uu yahay, wuxuu noqonayaa xadiis aan la qaadan karin. tanna saas ayay noqotay. marka waxaa loo baahnaa culimmada inta aysan bulshada caamada u bandhigin xadiiskaas inay iska baaraan. casharkaygii 33 hadda kahor waxaan ku iray, albaabadii aan horey u xirnay, culimmadaan hore usoo xireen, aan ku furno furihii cilmiga inta uusan cadowga jabsanin oo dadka usoo bandhigin dadkii. haddana marxaladaas ayaa la joogaa. adduunkii waxay noqotay hal qaryo, hal tuulo. kilibkii geeska africa lagu duubo meel walbaa laga daawan karaa. cadowga islaamkana wuu leeyahay oo ka faa'iidaysanaya. nabigeena sidaas ayuu ahaa. cadowga islaamka in loo jabeeyo ma aha. qaarkeenan culimadii mushkilada haysto waxaa ka mid ah inay ka dhigeen saxiix albukhaari, saxiix muslim kutub macsuum ah, aan dambi khaladna ka dhacaynin. taasna waa khalad, waa bini aadam ijtihaad sameeyeen, muxadisiin badanna way qabeen. waxaan ognahay imaamkii muxadiska isagan ahaa caalimka ahaa sharafudiin addumyaati wuxuu leeyahay isagana, waama imaam dunya abu cabdillahi albukhaari, imaamkii adduunyada wuu ammaanay imaam albukhaari, fafi jaamicihi saxiix, jaamiciisa saxiixa ah waxaa ku jira owhaam, axaadiis laiska sawirtay aanba saxiixna ahayn aan jirin ayaa ku jira. axaadiis badan ayuu sheegay, waxaana ka mid ahaa xadiiskan nabigana madaxiisa linjir laga soo saaray, owhaamtay ka mid tahay. sababtoo ah waa xadiis yani cajiib leh. intii kale dhan ma maqlin, keliya waxaa maqlay isxaaq ibn cabdillah khaf ka maqlay, isaga ma jiro dhankiisa. isagana wuxuu leeyahay dhanka anas ibn malik waxaa iga soo gaaray, saxaabiga ahaa. imaam malikna wuxuu leeyahay dhanka isxaaq ibn cabdillah ibn abi talha waxaa iga soo gaaray. xadathana ma aha, akhbarana ma aha, waa mucancan, waa riwaayada, waa xadiis fardi gariib. saa daraad marka xadiiska noocaas oo kale ma aha xadiis la qaato. taana waxaan ku ogaanaynaa marka xadiiskan inuusan ahayn xadiis jiro ee awhaam dhacday ama dad u sawirmay ama yani wax soo geliyey kutubtii inay tahay, si nabigana calayhi salaatu wasalaam suuradiisa loo foolxumeeyo. sayidi ya rasuul allah, aada iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay inaad noo muujisay inaysan arrintan dhicin, inaad ahayd qof nadiif ah sida anas ibn malik laftirkiisa yiri, asxaabta qaar ay soo wariyeen. wadadii aad martid dadku waxay ku ogaan jireen waxaa kasoo carfi jiray catarkaagii, barafuunkaagii. canugii yaraa madaxa aad u salaaxdid waxaa lagu ogaan jiray barafuunkaaga kasoo carfi jiray. adigaa na baray islaamka inuu nadiif yahay, tanadafu ina alislaama nadiifu, islaamku waa nadiif. adiga ayaa nagu yiri nabigana calayhi salaatu wasalaam, atahuuru shatru liimaan, nadaafadda waa iimaanka kala barkiisa. marka xaasha lilah nabigana calayhi salaatu wasalaam inaan ku tilmaamno inuu ma aragti saas ahaa. saa ayaana loo baahan yahay xujadana in xujo lagu radiyo, ee ma aha in caatifo la isticmaalo ama sheekha dadkii lagu diro la yiraahdo ninkan nabigana calayhi salaatu wasalaam ayuu caayay. laakiin waxaa loo baahan yahay tathabut, wixii in layska hubiyo, layska baaro, oo arintana si walaaltinimo leh iyo akhawiye iyo cilmi iyo ma aragti deganaasho lagu daaweeyo. casharkeena maanta intaas ayaan kusoo kawaayay. jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum wa salaamun min allahi calaykum wa raxmatun min ladunhu wa barakaatu.